ولذلك كان لابد من خروج الماء بين رمال الصحراء للسيدة هاجر ورضيعها إسماعيل عليه السلام، وهو صرخ من العطش عندما تركهم إبراهيم عليه السلام يستوحشون بمكان لا زرع به ولا ماء امتثالا لأمر السماء. بيها سمسم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. صدق الله العظيم. iyadoo dhulka aynu ku noolnahay ay 70% biyo ku daboolan yihiin ayaa haddana sidoo kale culimada caafimaadku waxa ay cadeeyeen in jidhka bini aadamku uu 70% biyo yahay. waxaase jirta in biyo oo dhami aan isku mid ahayn oo biyaha ugu khayr badan biyaha adduunku ay yihiin biyaha samsamka sida ku cad axaadiista laga soo wariyay rasuulkeena subhanaa ee Maxamed nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ahaatee. biyaha samsamka oo aynu barnaamijkeena kaga hadlayno waxaynu helitaanka macnahooda magacooda iyo macnaha ay xambaarsan yihiin ba u maraynaa wadooyin badan inagoo wax ka weydiin doona culimo kala duwan oo ku takhasusay biyaha dhaqaatiir caalami ah iyo waliba waxgarad ka tirsan dadweynaha ku nool deegaanka ay biyahaasi ka soo burqadaan ee Maka al-Mukarrama. biyaha samsamka oo loogu yeero magacyo ay ka mid yihiin Shabaaca, Maymuna, Zamzam iyo maa murawiya ayaa tixraaca lagu sameeyay baaritaankooda waxaa sidaas looga dhigay buugga uu biyahaas ka qoray Dr. Yaxya Koosha oo khabiir ka ah wax badan ka ogaaday biyaha samsamka. Dr. Yaxya Koosha oo degan magaalada Jidda ee galbeedka dalka Sacuudi Carabiya waxa uu bartay daaweynta dabiiciga waxaana uu daraasad ka sameeyay biyaha samsamka. بئر زمزم يختلف من الآبار الآخر. المصدر الأساسي مو الوادي. المصدر الأساسي التشققات اللي جاية من الصخور من الجبال المحيطة بمكة. كيف؟ فتلاقي ماء زمزم يتغير خلال السنة. إذا كانت هناك أمطار تلاقي مويه زمزم حلو. إذا ما في أمطار بدأ يجم. ceelka biyaha samsamku waa mid ka duwan ceelasha kale ee biyaha laga soo saaro halka uu ka biyoobaana waa toga ama dooxa duleedkiisa ah ee ay biyaha ku soo rogaan buuraha ku xeeran magaalada Maka. xilli kasta oo buurahaasi ay helaan roobka oo daadku soo maro dooxa Ibraahim waxa macaanaada dhadhanka biyaha haddii roob la waayo waxaad ka dareemaysaa biyaha samsamka waxoogaa adeeg ah. عينة من مويه زمزم. biyahaasi oo isbedelka ku yimaada yahay mid ku xidhan biyaha roobka ayaa dhanka kale waxay yihiin biyo xigmadda ka dambaysa loo kala qaaday laba sababood oo kala ah. in ilaahay ku noolaysanayay xaaskii Nabi Ibraahim ee Sayyidatu Haajar iyo ilmaheedii yaraa oo ah Nabi Ismaaciil oo uu goob saxaara kaga tagay Nabi Ibraahim calayhi salaam si uu u fuliyo amarkii Eebba farayay iyo xigmadda labaad oo ahayd inay halkaa ka aasaasanto magaalada Maka oo deegaan laga dhigay wixii ka dambeeyay markii isha samsamku ay ka dilaacday. Dr. Hayman Naxal oo ku sugan dalka Isuutaga Imaaraadka Carab waxa uu bartay culumta caafimaadka guud isagoo si gaar ah ugu takhasusay isku daaweynta soonka ama ramadaanka oo ah in xanuunada qaarkeed lagu daweyn karo biyaha caadiga ah ee la cabo oo aad isticmaasho ama aad u isticmaasho dariiqo caafimaad adigoo ka soomaya dhammaan cuntada kale iyo sharaabka.
الطبيب بيحدد نوعية معينة من الأكل ولمدة معينة وبطريقة معينة وبشروط معينة. biyaha oo lagu soomo waa dariiqo ka mid ah daaweynta dabiiciga ah ee cudurrada qaarkood bukaankuna waxa uu biyaha u qaadanayaa qaab qorshaysan oo soconaya muddo dhakhtarku uu qorayo muddadaasi waxay noqon kartaa 48 saacadood ama 3 maalmood ama hal toddobaad baaritaanadii u dambeeyay ee la sameeyay waxay gaarsiisanayeen إلا قوية لا تنمى. ما زالت فترة الصيام كل ما كانت هذه أمور طبعا لابد تكون تحت إشراف طبي من خوف من المضاعفات الطبية أو لا قدر الله أن يصير في مشاكل في داخل جسم الإنسان. فبالفعل هي طريقة علمية حديثة ومفيدة جدا لأي إنسان سليم ولكن تحت 100 خط تحت إشراف طبي. culimada caafimaadku waxay rumaysan yihiin in hanaanka isku daaweynta biyuhu uu yahay dariiqo caafimaad oo xitaa u baahan yahay qof kasta oo aadama ah xitaa haddii uu yahay qof caafimaad qaba waxaana u wanaagsan in sanadkiiba uu mar isticmaalo daaweynta dabiiciga ee biyo ku soonka taasoo ah inaad ugu yaraan 48 saacadood qaadatid biyo oo keliya kana soontid wixii kale ee soo raaca sida cuntada iyo sharaabka kaleba waxaase dhakhaatiirtu ku howlan daaweynta noocaasi ay guddigood ku adkaysanayaan in qofkaasi helo khubarada caafimaad ee daaweyntaasi qaabilsan xilli kasta oo isku daaweynayo biyaha la cabo. دكتور إيموسو مازارو oo ah caalim ku takhasusay biyaha iyo qaybahooda una dhashay dalka Japan bugaag badan ka qoray biyaha iyo faa'iidooyinkooda waxa uu aaminsan yahay in cabitaanka biyuhu ay saameyn ku leeyihiin garashada iyo afkaarta qofka caadiga ah sidoo kalena ay qayb ka yihiin quwadda uu yeelan karo basharka aadamuhu دكتورku waxa uu inoo sharaxayaa farqiga u dhaxeeya biyaha samsamka iyo biyaha caadiga ah iyo hadiiba ay jirto in biyaha samsamku ay awood u leeyihiin inay dhadhan ahaan iyo miisaan ahaanba bedeli karaan biyo caadi ah oo lagu dhex daray. ザムザムウォーターは、ミネラルが強い、水でありましたから、確か直接的には結晶は。biyaha samsamka waxa ku jira macaadin badan sidaa darteed waa biyo xoog leh xaaladda markaynu eegno biyahaasi si toos ah looma bedeli karo iyaga laakiin dhibicda biyaha samsamka ahi haddii lagu daro waxay bedeli kartaa 1000 dhibcood oo biyaha caadiga ah iyadoo ka wada dhigaysa biyo samsam ah. caalimka jarmalka ee isna lagu magacaabo Viva ayaa ka mid noqday culimada baaritaankooda biyaha samsamka u maray dariiqo casri ah iyo sidoo kale caalimka kale ee Kirian Kamara. caalimka jarmalka ee Dr. Kind Viva oo ku takhasusay cudurrada uurku jirta cudurrada xubnaha iyo rheumatismka madaxna ka mid ah xarumaha waaweyn ee caafimaad ee ku yaala magaalada Munich ee dalka Jarmalka ahna culimadii ugu horeysay ee wax ku daaweysay awoodda tamarta waxa uu inoo sharaxayaa sida iyo waxyaabaha kale uu ka og yahay biyaha samsamka ama maa'u murawiya. So we delivered PST devices and then Hosam took some Samsam water with him back home. And then we got this strange idea, let's have a look if this kaaliyahayga oo lagu magacaabo Xisaam ayaa biyaha samsamka hore u soo qaaday markii uu ku soo noqonayay Munich markuu ii keenay waxa nagaga soo baxday arimo naga yaabiyay waxaanu isweydiinay inaanu arki karno awoodda iyo tamarta biyaha samsamka laakiin markaanu sawiradii u horeeyay ee tijaabadeeda aragnay waanu fajaacnay ugu yaraan 6 ruux ayaanu ku tijaabinay muddo 4 sano ah ka hor arintan naga wada yaabisay waxa ahayd quwadda ay leeyihiin biyaha samsamku xilli aanu weliba ka soo qaadanay Jiddah ilaa Maka iyo Munich oo aanu keenay oo intii jidka ay ku soo jireen ay la kulmeen ilays lagu eegayay goobaha madaarada haddana ilaa 2 toddobaad iyo ka badan ay biyaha samsamku ku sii haysteen tamartooda ku jirta. This strange idea,
Let's have a look if this works, if the Zamzam water, if we can see the reaction. And we've been both. biyaha samsamka waxaa ku jira macaadin iyo waxyaabo kale oo aan ku jirin biyaha kale ee adduunka yaala oo dhan taasina waa sababta ay u noqdeen daawada waxay kordhiyaan tamartaada iyagoo buuxinaya noocyada tamareed ee ka dhiman jirkaaga shakina kuma jiro in biyaha samsamku yihiin hibo gaar ah. I would tell everybody drink as much as possible from Zamzam water. No matter, it helps. tani waa sawirkaagii hore ee jismigaaga intii aadan cabbin biyaha samsamka waad aragtaa xitaa gacmahaaga ma kala baxsana laakiin 15 daqiiqo oo keliya markii aad cabtay 25 mililitir oo biyaha samsamka ah waxaynu arkaynaa in isbeddelka ka muuqda jirka biyaha samsamka oo wada gaadhay jirka tamar badanna siiyay. Thank you very much. I will drink it. والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. دكتور يحيى كوشا waxa uu mar kale inooga qisoon doonaa macluumaad ku saabsan biyaha samsamka ama ma umrooya oo isha ay ka soo baxayaan ee ay ka soo burqanayaan ay ka soo bilaameen muddo 5,000 oo sanadood. معرفة مصادر الماء في زمزم ما كان هناك أي معلومات وعندما قسنا في ذلك حاولنا نعرف اتجاهات مصادر البئر. ذلك الوقت عمق البئر كان 18 متر. xilligii aanu daraasadayda ka bilownay ceelka samsamka guntiisa hoose waxay ahayd ilaa 18 mitir waxaanu isku daynay inaanu calaamadino meelaha ay biyuhu ceelka uga yimaadaan markii aanu rag biyaha quusa ceelka u ridnay waxaa ku adkaatay inay helaan ilaha biyood ee ceelka imanaya. xilligaasi khubaradii uu horkacayay Dr. Yaxya waxay go'aansadeen inay kamarad ku ridaan ceelka guntiisa taasoo ugu dambeyntii daha qaaday agab iyo maacuun kala duwan oo ku jirtay ceelka. دكتور سقلول نجار هو عالم ودشي سنة دلك جوردن oo ku takhasusay dabeecadaha dhulka waxa uu madax ka yahay xarunta horumarinta culumta quraanka iyo sunnaha nabawiga ee caalamka islaamka isagoo oo qoray buugaag cilmi oo ka badan 75 kitaab. الذي يعرف جيولوجية منطقة مكة المكرمة يرى أن مكة مقامة على كتلة هائلة من الصخور النارية المتحولة. culimada joolojigu waxay isku raacsan yihiin in magaalada Makka ay hoos maraan toog dab ah oo guurguura kuwaasoo meesha ay ka guuraanba ay noqoto meel bannaan oo ay suuragal tahay inay ka soo baxaan ila biyood oo isu taga oo faa'iido sameeya. يعني الصخر لابد أن يكون فيه به فراغات تحتوي هذا الماء ولا بد لهذه الفراغات أن تتصل ببعضها البعض حتى يكون لهذه النقاط القليلة من الماء قيمة. طيب الكتلة الصخرية المقام عليها مكة المكرمة كتلة منعدمة المسامير كيف يمكن أن يخزن فيها ماء؟ arrinta isweydiinta mudan waxay tahay sida ay biyaha samsamka ee Makka uga imanayaan dhul ay togag dab ahi hadba dhinac u guurguurayaan iyagoo biyahaasi ay socdeen muddo 10 sanadood ah. وكيف يمكن أن يخرج
منها بئر يظل يفيض 4000 سنة. biyaha samsamka oo daawo ka ah cudurrada badankooda sida kansarka iyo isha ama cawrida ayaa hooyo ibraahim oo u dhalatay dalka jordan muddana la tabaalaysnay cudurka kansarku waxa ay aamintay ilaahay oo barako u geliyey isticmaalka biyaha samsamka oo ay iskaga daaweysay cudurkii ay la noolayd ee kansarka dhiigga oo ah darajada ugu xun ee uu gaadho cudurka kansarku. لما فت على الدكتور شاف التقرير هيك طلع وسكت ما حكى. شو في يا دكتور احكي لي. قال لا يا حاجة شوية لخبطة بالدم عندك وما ادري. قلت له شوف تحكي لك اللي عندي سرطان بالدم. markii aan cumrada u tagay Maka ee aan cabay dushaydana ku shubay biyihii samsamka ayaan dareemay caafimaad dheeraad ah. xilligii aan dalka dib ugu soo noqday dhakhaatiirtii hore ii baadhay ee ugu sheegtay inuu hayo kansarka dhiigga raaca ayaan u keenay baaritaano kale oo la igu sameeyay oo negative ah. waxaana la ii xaqiijiyay in aan ka bogsaday cudurkaas oo dhakhaatiirta badankoodu ka quusteen daaweyntiisa. taasi waxay ii suurta gashay markii aan ilaahay tala saartay isagana wax daweeya. والله العظيم إنها فرحة هاي عمات قلبي. كل الناس إنه يكون إيمانهم بالله قوي. dhammaan culimada biyaha iyo kala sarreynta dhulka iyo dhakhaatiirtuba waxay isku raacsan yihiin in biyaha samsamku ay daawo ka yihiin cudurrada badankooda ama dhammaantoodba iyagoo sidoo kalena dhinacyadani ay si isku mid ah ugu adkaysanayaan in ay isku daaweynta biyaha samsamku ay u baahan yihiin qiyaasta ku saabsan xaddiga biyo ah ee cudur walba loo qaadanayo xilliga la wadayo biyaha iyo dariiqada loo isticmaalayaba. biyaha samsamka wax badan lagama aqoon ilaa la qoday wadooyinka dhulka hoostooda mara ee magaalada Maka. injineeradii iyo shaqaalihii mashaariicda ka howlgalay waxay cadeeyeen inay dhulka hoostiisa ku arkeen raadad muujinaya ila biyood oo shaandho la moodo afkooda kuwaasoo ay dadkaasi sheegeen inay biyahaasi la nooc yihiin biyaha samsamka. waxaana suuragal ah in biyaha qayb ka madahi ay ka imanayso meelo aad u fogfog iyagoo soo qaadanaya macaadin kala duwan oo faa'iido u leh jismiga aadamaha. يدرس في إحدى الجامعات الكبرى في أمريكا ويقول أنقذه الله بقطرات قليلة من ماء زمزم. biyaha samsamka oo rasuulkeenu subanaay maxamed nabadgelyo iyo naxariiso korkiisa haatee uu ku sheegay biyo barakaysan oo cunto ah ayaa tijaabooyin badan oo laga sameeyay lagu ogaaday in lagu soomi karo muddo 24 saacadood. saxaabigii weynaa ee abudar al-ghafaari waxa uu ahaa qofkii ugu horreeyay ee biyaha samsamka ku sooma muddo 30 maalmood oo xidhiidh ah oo uu cabayay oo keliya biyaha samsamka. waxaana tusaalooyin isku mid ah ka bixiyay biyahaasi culimadii waaweynaa ee cahdigii khilaafada. caalamkii weynaa ee imaamu nawowi waxa uu ku sifeeyey biyaha samsamka kuwo qofka cabaa uu helayo xaajo kasta oo khayr ku jiro oo uu doonayay hadday tahay xaajo aakhiro ama mid adduunyo iyadoo cabitaankii biyahaasi sidoo kale ay sabab ugu noqdeen inay gaadhaan hadafkii ay barashada cilmiga ka lahaayeen culimmadii waaweynaa ee ay ka mid ahaayeen imaamu shaafici imaamu xaniifi iyo imaamkii kale ee imaamu faraahi kuwaasoo helay sirtii ku jirtay cabitaanka biyaha samsamka ama maa'u murawic.
صدقت سيدي يا رسول الله، ماء زمزم لما شرب له. فاللهم نور عقولنا واهدنا سبل الرشاد، واذهب عنا الخوف إلا منك، والرجاء إلا فيك، واليقين بوعدك. واحيي قلوبنا همة وغيرة على دينك، فتسمو مقاصدنا وترتقي أهدافنا وتقوى أجسادنا، فنحيا فرسانا نقود الدنيا ونكون شامة العالمين علما وخلقا ودين، وننوي بمروية أن نكون أهل الزمان والمكان.